السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال كلانتي وعن او وناكسن idil ahaantiin ba meel walba oo aad joogtaan iyo si walba oo aad la socotaan ba waxaan idin leenahay halkani waa telefishinka caalamiga Soomaalida Itoobiya ee Estv gaar ahaan stuudiyaha xarunta saddex magaalada Tigtiga daawadayaal waxaan soo gaarnay xilliga goorsheegta ku beegnad inaan si toos ah wadeedin ku soo gudbino warar wixii naga soo gaaray guud ahaan deegaanka dalka iyo waliba daafaca caalamka anigu waa Ibrahim class ayaa warkayga idinku diyaara si toosan idinku qaada dhigi doona qodobada wararkan idinka hayna deegaanka dalka iyo waliba daafaca caalamka kuwada ugu doorka roonna waxaa kamid ah garoonka diyaaradaha ee magaalada Gudaha ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay wafdi ballaaran oo ka socday heer caalami wafdi Warka iyo wasiirka wasaaradda beeraha iyo horumarinta kheyraadka dabiiciga ah ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka dalka Itoobiya ayaa booqday beeraha wax soo saarka sisinta ee deegaanka Tigray qodobkaasi dalka gudihiisa ayaad ku maqli doontaan halka dalka dibadiisana aad ku maqli doontaan weerar tuugasho ah oo ka dhacay magaalada Las Vegas ee dalkaasi Mareykanka ayaa la sheegay inay ku dhinteen dad ka badan 58 qof halka boqolaal qofna ay ku dhaawacmeen daawadayaal qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan iyo xubinta ciyaarahana u diyaar garooba faahfaahintooda وهاجاك داوديال مركله isku soo noqod wanaagsan oo wacan haatan ku soo dhawaada qodobadii warka oo faahfaahsan garoonka diyaaradaha ee magaalada Gudaha ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay wafdi ballaaran oo ka socday heer caalami warbixin umurtaasi ku saabsan waxa inoo soo diyaariyay wariyaheena gobolka Shabeelle Aalaba inooga soo warama Farax Bade wafdiga oo isugu jiray heer deegaan iyo heer caalami ayaa waxay ka degeen gegida diyaaradaha magaalada Gudaha waxaana halkaas si diiran ugu soo dhaweeyay mas'uuliyiinta maamulka gobolka Shabeelle mas'uuliyiinta maamulka magaalada Gudaha ugu horeeyo gudoomiyaha gobolka Shabeelle Mudane Farxaan Cabdi Maajuun iyo maayarka maamulka magaalada Gudaha Cabdi Samed Aadan Cismaan soo dhaweyn kadibna waxay wafdigu aan baxeen qabalayaasha cilaan iyo dowlad bacaad oo ka tirsan degmada Gudaha gobolka Shabeelle oo ay hay'adda laga leeyahay dalka Spain ka fulisay mashaariic taageeraha oo bulshada qabalayaashaasi ku dhaqan kaga taageerayeen dhinaca shaqo abuurka iyo barista khibradaha wax soo saarka dalka beeraha waxaana sidoo kale 12 iskaashatay beeraley kanaladii waraabka beeraha u saareen bac iyadu ka difaacaysa biyaha kanaalku cabi jiray ee carrada hoos u gali jiray sidoo kale waxay abuureen urur iskaashatooyin dumar ah oo ay 100% ka caawiyeen dhinaca khibradda ganacsiga sidoo kalena u sameeyeen goobaha ay ku ganacsan lahaayeen iyagoo isla waqtigiina uu xadhiga ka jaray makiinadaha raashinka ridqo kamid ah mashaariicdan ay fulisay hay'addu safiirka dalka Spain u fadhiya dalkeena Itoobiya Morta Montano iyo maareeyaha hay'adda fulisay dhismahan mashaariicda ee laga leeyahay dalkaasi Spain haddaba wafdigan oo intay booqashada ku jireen ay wehelinayeen wasiirka xafiiska waxbarashada ee deegaanka Soomaalida Itoobiya Mudane Ibrahim aadan mahad iyo wasiir ku xigeenka xafiiska ka hortagga iyo diyaar garowga masiibooyinka deegaanka Soomaalida Itoobiya Mudane Anwar Cali ayaa waxay wafdigan sharaxaad ka siinayeen goobaha ay booqdeen soo kalena uga mahad celiyeen wax qabadka bulshada ay u sameeyeen oo ah mid wax weyn ka anfici doona noloshoodan isbedel u horseedi doona bulshada degan jiinka wabiga daawaha ee santarka fiiqo ayaa si habsami ah uga faa'iideysanaysa nidaamka xoolo dhaqata beeraleyda ee lagu sameeyay santarkaasi fiiqo sida warbixin umurtaasi ku saabsan uu inoogu soo diyaariyay Bashiir Cabbaas oo Aalaba inooga soo warama gobolkaasi daawa isbedelka horumarka xawliga ku socda oo marka ka dambeysay soo tareeya ayaa ah mid ka hana qaaday guud ahaanba dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya haddaba shacabka ku nool santarka fiiqo ee ka tirsan degmada Doolocado ayaa ah mid si habsami ah ay uga faa'iideysanayaan dejintii ay xukuumaddu u sameysay sanooyinkii la soo dhaafay waxaana xusid mudan in xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya uu dejiyay qorshayaal mug leh oo lagu horumarinayo bulshada isla mar ahaantaasina loo bedelay noloshii hore ee geediga ahayd xoolo dhaqata beeraley oo dejin loo sameeyay waana kuwan qaar ka mid ah shacabka ka faa'iideysta beertani oo ka warbixiyay xaaladda guud ee xoolo dhaqata beeraleyda iyo waliba sidoo kale faa'iidada ay ka helaan annagoo isku duuban oo gacmo duuban waan ka faa'iideysanay ka faa'iideysigaynana waad aragteen intaad soo marteen marka habka waxa weeyaan ugu faa'iideysanayna hadii ay tahay dib u dejin hadii ay tahay dad kale oo ku dhex nool oo maalmoodka ka soo saarnay annagana faa'iido badan ku qabnaa waxyaalo fara badan dalag fara badan ka soo saaranay marka hadda saad u joodeen waad aragteen beerta horumar baa gaaray
dhankiisana gudoomiye ku-xigeenka degmada Doolacad oo ahna hoggaanka nabadgelyada ee degmada Mudane Maxamuud Xaaji Dayb oo warbixin naga siiyay xaaladda guud ee xoolo dhaqatada beeraleyda oo uga mahad celiyay xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya ee dejinta u sameeyay xoolo dhaqatada beeraleyda waxaana hadaladiisii ka mid ah kantarka fiiqow kaasoo ahaa dibadejintii midii loo sameeyay ilaa 2003 iyo ilaa hadda dibadejintii beerihii loo sameeyay iyo kanaaladii ayaan mataqaanaa kormeeraynay iyo si aan bulshada mataqaanaa ugu baraarujino halkan oo mataqaanaa ah goobaha aad u waaweyn ee fiiqow ku yaala ee laga sameeyay looga sameeyay dibadejinta mataqaanaa beeraha dhul beereedka looga sameeyay kuwaas oo dheer ka dhan ilaa 400 oo mitir marka waxaan leeyahay halka laga sii wado beeraleyda waxaan ku boorinaynaa habeen iyo maalin waan garab taaganahay dadaalka aad wadaan sii wada waan leenahay matooro hadii loo baahdo mataqaanaa dhiirigelin hadii loo baahdo iyo hawlgalba hadii loo baahdo waan garab taaganahay caafimaad beero waxbarasho wax walba isku soo wada duuba beertan oo ku taala jiinka webiga daawatuulada fiiqow ee degmada Doolacad oo hoos timaada ayaa waxa mulkiyadeeda isku leh in ka badan 100 qof oo ku boobay hal iskaashato oo la yiraahdo Horseede waxaana ka baxa beertan midhaha qaybahooda kala duwan oo ay ka mid yihiin sida babayga cambaha muuska liinta saytuunka iyo wixii la mid ah dadaalka ballaaran ee kala go'aalayn ee xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya la garab taagan yahay hadiya habeenba ayaa wuxuu ka mid yahay mid lagu doonayo in laga baxo saboolnimada loona gaaro isku filaansho si dalkeenu uga mid noqdo wadamada uu dhaqaalahoodu dhexdhexaadka yahay Bashir Abbas telefishinka caalamiga ee Estv santarka fiiqow ee degmada Doolacad وهاجاك داود يلا هالكولي وركاسي آد سيدا توسكا وقد دهان إسان وشاشة التلفزيون كعالمي الصومالي دي إثيوبيا Estv جارهان استوديو حرم تصدحها مقالة دا تشيكتشيكا داود يلا هدي إنه أنت سكجسو قدمناه وروح نجسو قاردين عديجانكا هاتنا إنه طلعنا ورك نجسو قاري دلك جديهسا وفد وركا أي وزير كوزارة بيرها يهور مرنتا خيرات كدبيعية جمهورية الديمقراطية فدرال كدلك إثيوبيا أي بوغلي بيرها وخصوصا كسسنتا كويا لديجان كتكري سيدا وربحنا مرتا سكو سابسن ونوغو شيغيو إبراهيم عبد الموسى booqashadani hawleed ee wafdigan ku mareeyay wax soo saarka sasinta deegaankaasi Tigray oo ah mid loogu talagalay sidii wafdigan ugu kuurgali lahaa wax soo saarka sanadkan waxaana la sheegay in 500 oo kun oo hektar wax soo saarka sasinta lagu beeray deegaankaasi Tigray waqtigii goosashadana la taagan yahay waxayna beeraleydankaasi ay ka faa'iideysanaysaa wax soo saarka sasinta iyo waliba maalqabeennada ka faa'iideysanaya sektorkaniba sheegeen in sanadkan ay heleen wax soo saar aad u wanaagsan በመስመር ዘርተህና በማዳበሪያ ከዘራው እና ዝናብ ካለ ለውጥ አለው ማለት ነው እና ይሄን ያህል አገኛለሁ ባልኩበት በጠበቁት ላገኝ ይችላልው marka qaabka casriga ah ee line-ka loo beero bacriminta dhulkana loo isticmaalo isla markaana roobkii loo baahnaa la helo isbedel wanaagsan oo xagga wax soo saarka ah ayaa imanaya marka waxaan rajaynaynaa inaan helo wax soo saarkii aan qorshaysanay inaan helo ተወሰነ እንደ 20 ሄክታር ዘርቻለሁ ለመስመር ሰሊጥና ማሽላ እና ዋጭና ጥሩ መሆኑን አይቼዋለሁ waxaan beeray wax soo saar gaaraya ilaa 20 hektar kaasoo aan u beeray qaabka casriga wax soo saarkaas oo isugu jira sisinta iyo haruurka sanadkan aad ayuu u wanaagsan yahay wax soo saarku waxayna waftigan ay ku wehelinaysay isku duwaha guud ee guddiga golaha wakiilada shacabka u xilsaaran arrimaha wax soo saarka beeraha ay sheegtay in wax soo saarka kala duwan ee dalkeena u dhoofiyo dalka dibadiisa oo ay ugu horeysa sisinta marka laga yimaado bunka waqtiga la wada dadaalo ku aadan sidii wax soo saarka sisinta looga faa'iideysan lahaa sidii loogu talagalay dhinaciisa wasiirka wasaaradda beeraha iyo horumarinta khayraadka dabiiciga ee jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya Dr. Iyaaso Abraha ayaa sheegay in sanadkii tagay dalku wax soo saarka sisinta ka helay dakhli dhan 300 oo milyan oo sanadkana la qorsheynaya in wax soo saarka sisinta laga soo hooyo dakhli dhan 500 oo milyan oo dollar dadaalada ay muujiyeen beeraleyda iyo hantiilayaashuba uu yahay mid bilow wanaagsan una baahan in la sii dardargeliyo taasoo wasiirku sidoo kalena soo jeediyay in beeraleydu ay xoogga saaraan ururinta iyo goosashada wax soo saarkan waqtigii loogu talagalay loona baahan yahay dad ay tiradoodu dhan tahay 1.5 milyan oo qof oo ka qayb qaata ururinta iyo goynta wax soo saarka isla markaana ay laga maarmaan tahay inay ka qayb qaataan deegaanada kale arintani waxayna beeraleyda deegaankaasi waqtigan ka faa'iideysanayaan kasokow beerahan sisinta midhaha kala duwan ee sida haruurka warka naga soo gaaraya dalka dibadiisa weerar tuugashaah oo ka dhacay magaalada Las Vegas ee dalkaasi Mareykanka ayaa la sheegay in ay ku dhinteen in ka badan 58 qof halka boqolaal qof oo kalena ay ku dhaawacmeen
sida warbixin umuurtaasi ku saabsan uu inoogu soo diyaariyey wariyaheena Mustafa Yuusuf. weerarkani toogashada ah oo lala beegsaday dad tiro badan oo ka qayb qaadanayay bandhig faneed ka dhacay magaalada Las Vegas ee dalkaasi Mareykanka ayaa waxaa dadka isugu yimid halkaasi habeenkani lagu qiyaasay in ka badan 22,000 oo qof balse jawiga farxadeed ee dadka ka qayb qaadanayay bandhig faneedkani ayaa saacado kadib isku bedelay naxdin iyo murugo kadib markii ninka qaaday weerarkani toogashada ah oo xabado kaga soo furay dabaqa 32 ee hotelka Mandalay Bay halka uu ka socday bandhig faneedkaasi. waxaana weerarkaasi toogashada ah lagu dilay tirada la og yahay ilaa hadda 58 qof halka lagu dhaawacay dad ay tiradoodu ka badan tahay 500 oo qof iyada oo ninka weerarkani geystay ee Mareykanka ah da'diisu ay tahay 64 jir iyadoo aan la ogaanin sababta ku kaliftay arrintaasna uu istilay. fuliyaha weerarkan toogashada waxaanu weli ku guda jirnaa baadhista taariikhdiisa balse markii aan baadhitaan ku samaynay qolkii uu deganaa waxaanu ka helnay hub aad u fara badan tanina waxayna tusinaysaa in loo baahan yahay inaan samayno baadhitaan qoto dheer dhacdada noocan ahna waa tu aan weli halkani ka dhicin oo aad u naxdin badan si tallaabadii loo baahnaa looga qaado cidda ka dambaysa falkan waxaan samayn doonaa dadaal dheer waxayna qaar ka mid a ka qaybgalayaasha bandhig faneedkani ay sheegeen in dhacdadaasi muddo 40 daqiiqo ka hor ay gabadh dadka isugu yimid halkaasi uga digaysay dhibaatadan balse cid ka maqashay ayna jirin digniintaasi waxauna madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Donald Trump weerarkaasi kadib uu boggiisa Twitterka ku soo daabacay inuu aad uga xun yahay falkaasi dadka ku geeriyoodayna uga tacsiideeyay dalkaasi Mareykanka ayaa waxaa ku soo noqnoqonaya falalka noocan ah laga bilaabo sanadkii 1920 kuwaas oo ka dhacay qaybo kala duwan oo dalkaasi Mareykanka ka mid ah. waa hagaag daawadayaal haddii aynu intaasi kaga soo gudubno warar wixii naga soo gaadhay deegaanka dalka iyo weliba daafaca caalamka haatanna aynu wada daawano xubinteena ciyaaraha ee warka. For Liverpool against Stoke City in the Premier League. kooxda kubadda cagta Real Madrid ee dalka Spain ayaa war farxad leh ka heshay xaaladda caafimaad weeraryahanka qaranka Faransiiska Karim Benzema kaas oo ka soo kabsaday dhaawacii uu qabay diyaarna u ah inuu ku soo laabto shaxda kooxda uu hogaamiyo tababare Zinedine Zidane. Karim Benzema ayaa diyaar u ah kulanka Sabtida ee ku beegan 14 Oktoobar la ciyaari doona kooxda Getafe kulanka tirsan horyaalka La Ligaha dalkaasi Spain. xidigan qaranka Faransiiska ayaa xitaa diyaar u ahaa sida wararka ay sheegeen kulankii kooxdiisa labada gool ee kaga badisay kooxda Espanyol laakiin tababare Zidane ayaa doortay xidigan inuu halis gelin si uu diyaar ugu noqdo kulanka fooda ku soo haya ee Sabtida dhici doona. ciyaaryahankan Benzema ayaa waxa uu dhaawac u ka soo gaaray lugta kulankii barbaraha ay la galeen kooxda Levante bishii hore waxa uuna seegay kulamo muhiim ah horyaalka iyo weliba Champions League. Real Madrid ayaa barbaro kula gashay garoonkeeda kooxda Levante kadib inta aysan guuldarro kala kulmin Real Betis laakiin ugu dambeyn kulankii ugu horeeyay xilli ciyaareedkan ayaa waxa ay guul 2 gool ka gaartay kooxda Espanyol. kooxda Inter Milan ee dalka Talyaaniga ayaa bilowday inay ka sii fikirto xidiga ay kooxdeeda ku soo xoojin doonto marka uu furmo suuqa kala iibsiga ciyaartoyda bisha January si ay u sii wadato tartanka ay ugu jirto hanashada horyaalka sire ee dalkaasi Talyaaniga. naadiga Inter Milan ayaa xiso u muujisay saxiixa xidiga qadka dhexe kooxda Barcelona iyo xulka qaranka Portugiiska ee Andre Gomes iyaga oo doonaya inay u dhaqaaqdo saxiixa marka uu furmo suuqa kala iibsiga ciyaartoyda bisha January. wararka qaar ayaa sheegay wakiilka xidigan uu si toos ah ula xiriiray kooxda Inter Milan isagoo u soo bandhigay fursad ay ku heli karto adeegiisa wakiilka oo sidoo kale doonaya inuu xidigan si joogto ah ugu ciyaaro si uu badbaadiyo fursadiisa ugu qayb gali karo koobka adduunka ka dhici doona dalka Ruushka 2018 laakiin kooxda Inter Milan ayaa xidigan ku dalban doonta heshiis amaha ka hor inta aynan xagaaga dambe kula wareegin lacag 20 milyan oo euro. ciyaaryahankan Andre Gomes oo 24 jir ah ayaa kooxda Barcelona kula jira heshiis ku eg sanadka 2021 isaga oo kooxda kaga soo biiray dhanka iyo kooxda Valencia xagaagii hore isla markaana kooxda Barcelona ku yimid lacag 5 milyan oo euro. For Liverpool against Stoke City in
the Premier League. guud ahaan daawadayaal waxaanu intaasi ku soo afmeerinaa warar wixii naga soo gaaray deegaanka dalka iyo waliba daafaca caalamka oo aad si toos ah uga dheehanayseen shaashada telefishinka caalamiga Soomaalida Itoobiya ee Estv gaar ahaan stuudiyaha xarunta saddex magaalada Jigjiga anigoo Cabdirsaaq Ibrahim Claasa ayaa si toos ah idinku waramayay aniga akhyaartii kale ee sida heerka sare ay la qayb qaadatay xilli tabinteena wareed idinkoo u diyaar garoobaya qaybaha kale oo TV-gu idinku talagalay waxaan idinku dhaafaynaa السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.